guurka Soomaalida ayaan ahayn oo kaliya xiriir u dhaxeeya arooska iyo aroosada balse sidoo kale waxa uu yahay xiriir u dhaxeeya qoysas iyo qabiilo. bulshada Soomaalida dhexdeeda ayaa isdhexgalka guurka ku xidida balse xaaladda qabiilka gabooyaha ayaa ka bedelan. qofkii ka guursadana waxa uu halis ugu jiraa in la dayriyo. Sahra oo aanan ahayn magaceeda dhabta ah ayaa waxay jeclaatay wiil gabooye ah 18 sano ka hor. guurkeeda looma arkin mid lagu farxay oo mudan in loo dabaaldego balse waxa loo arkay mid ceeb iyo sharaf dhac ku ah qoyskeeda. marka la weeriyay oo mula dukaanka taga la ereeday iyagoo shan markii la ereeday markii la gaar waay markii damana aan dhacay masaw dhacay shan mulana beer baan u dhacay miirka markaas iga tigay anigoo gabigayga soo xayo miirkayga tago naxdin iyo isku ka darsameeyay kufitaankana kufay ayaa meeshii la iga soo qaaday. qabiilkan oo wajaha inta badan dulmi iyo takoorid ay kala kulmaan Soomaalida kale ayaa haddana dadka ka dhashay waxay leeyihiin farsamooyin kala duwan oo ah kuwa Soomaalidu ay ka faanaan. toddobaadmeeyadii madaxweyne Siyaad Barre ayaa soo saaray sharci diiday faquuqa ka dhanka qabiilada laga tirada badan yahay. magaalada London ayaan kula kulannay Maryan Mursal oo ka mid ah fanaaniinta caanka ee Soomaaliyeed. waxay aaminsan tahay in dadkeeda ay u istaagaan cadaalad darrada lagu hayo. qof walba wuxuu isku sameeyay ayuu noqonayaa. hadda adiga hay iska dhigtahay baa tahay, hadda loo iska dhigtay loo baa tahay. marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka oo reerahan ah oo anigu aan ka tirsanahay inay isku kalsoonaadaan baan ku waanin lahaa oo nin walba qabiilkiisa ku kalsoonaado oo gacanta saas kor u hayo. dad badan oo ka tirsan qoomiyadda gabooyaha ayaa bilaabaya inay u dagaalamaan xuquuqdooda. xaaladda ayaana si tartiib ah isku bedelaysa balse ma fududa qarniyo badan oo ay soo socdeen faquuq in la soo afjaro. aniga inaan dhalay aade ayay inaan isjeclaadeen inaan aan dhalay aniga waanan inantana waan inii keeni karaa waanan ina tusi karaa. markii la isku kaayo geeyey odayadii ee la doonayay inaan u meeriyo adaa la yidhi waa qolaba waa Muuse Dhariye baan oo Muuse Dhariye gashaa iyagu iyay gashaa Muuse Dhariye kolkaas waa dadka u taqaaniin gabooyaha ama midgaha de kuwa isma banaan guursan karina waqti dambe aad bal aynu balanna baa la yidhi. waalidiin badan sida Sahra oo kale oo ku nool Hargeysa iyo Cabdi oo ku nool London ayaa ku dadaalaya in ay ka ilaaliyaan caruurtooda faquuqii ay la soo kulmeen balse waxa ay sidoo kale og yihiin in bedelida dhaqan soo jireen ah ay qaadanayso muddo dheer taasna waxay xilli dambe ku tahay jiilka maanta jooga.